sida aan maqalnay dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay xiri doonto amaba ay ka ganaaxi doonto maraakiibta u socoto Israel ee marinka Bab el-Mandeb. Marka arrintaas sidee u dhici kartaa? Malmahan dhan arrintaas waxaa moodaa dadka inay falanqeynayeen. Dadka qaar way leeyihiin wax dhici kara maaha, dadka qaar waxay leeyihiin waa wax macquul ah. How marka sidee ay u dhici kartaa? Horta in somehow hadalkaas ka soo yeeray waddankaas oo xuduudda la leh baddaas gaar ahaan Bab el-Mandeb intaas kaliya micnay sameynayo waxa waaye maraakiibtu waxay ku qasban yihiin inay shift sameeyaan ama kala wareeg meelahay mari jireen ruudadka iyo qadadka mari jireen inay wax ka bedelaan maadaama waddan daris leh Bab el-Mandeb arrintaas oo sheegay sababtoo ah markab walba oo marayo maxaa la yiraahdaa biyahaas Bab el-Mandeb waa markab ku jiro canshuur aan idhaahdee insurance lacag laga qaado si loo ilaaliyo badqabkiisa. Marka shirkadaha insurance-ga hadday meeli ka dareemaan threat ama hanjabaad ama khatar uma ogolaadaan maraakiibtooda inay maraan meeshaas. Waxay ku dadaalaan sidii u heli lahaayeen qadkaas qad ka duwan. Marka intaas laftirkeeda waxay sameynayaan marka saameyn hadalkaas. Sidoo kale hadda dowladda Soomaaliya waxaan ognahay waa dhowrkii sano ugu dambeysayna si xawli ah inay u socoto. Inay hadda sugayso diyaaradihii ugu dambeeyay dunida ugu casrisaneed. Haddii diyaaradahaas gacanta ay ku dhigto waddanka la keeno oo laga howlgeliyo, it's gonna be another different job man. Hawl kale oo noqonay. Macnaha indha lagugu eegi jiray maahan indha kale oo ka duwan lagugu eegaa. Waa sababta loo yiraahdo waxaa laga yaabaa inay noqoto meeshaas macnaha furmusta labaad. Ayuu waxa saacidayo dhinaca waxaa ka saaran Yemen oo ayadana og tahay meesha sidii ka tahay halka ay ka taagan tahay qadkaas la maro dhinaca kalena Soomaaliya. Marka arrinta waxaan filaa inay ka sii adkaanayso sida loo maleynayo. Dad badan oo quursanaya waddankan waxay leeyihiin magaalada waxaas wax suurtagalay maahan waa wax ay iska tiro oo laakiin iska dhaxaas la iska yiri xataa hadaba u soo qaadnaba laftirkeeda waxay sameynayaan macna aad u weyn. Macnahaas aad ka weyn waxay toos u sameynayaan maraakiibta biyahaas marayo. Ayuu markab walbo biyahaas marayo waxa uu leeyahay ama uu ku jira insurance macnaha caymis. Shirkadahaas insurance-ga ama caymiskana uma ogolaan doonaan maraakiibtooda meel hanjabaad uga imaanayso. Marka khasaaraha intaas ugu filan. Maraakiibta waddanka xun maraakiibtiisa haddii target laga dhigtana waa isbedel weyn waa. Marka kulay waxaan rajaynayaa khayr ku jiro arrintan khayr fiican ku jiro. Sidoo kalena waa odayga Trump waa la socon wax ku dhacayo inuu sigto ninka waa nin aad u nasiib badan markii saddexaad uu siganayo waa xalay markii anaga shalay noogu beegneed xal oo kale ee u ahayd ayaga waxaa jira xaflad loo qabanayo maxay yiraahdaa wariyaasha aqalka cad xafladii waxa iska soo galay nin qori wato oo ordayo ninkii waxa la cadeeyay inuu ahay macallin iskuul bil hore bishaan dhamaadkeedii bisha hadda dhamaatay uu qaatay macallinka ugu fiican bisha hadda xalayna soo ordayo wuxuu la galay meeshii madaxweynihii joogay qori oo rabo inuu dagaal meesha ka bilaabo madaxweynaha buu dilay markii xurkiisa kulli waa laga gaaray waxaan la sheegayay inay soo direen isla qoladii xumeed oo waddankaas deganaa maxaa yeelay waxa la xaqiijiyay magaciisa in laga search gareeyay isla waddankaas koofiya gaabta waddankooda qof jooga inuu search gareeyay qofkan dhibaatada sameyn doono magaciisa inta uusan dhibaatada sameynin. That means marka linkiga uu isku yara xiran yahay odayga inay ka taqalusaan oo qaarajiyaan isku dayaan. Anyway, that's that. Arrintaas degdeg ah rabaa inaan idin sheego marka ku soo dhawaada fadlan. Soo falo guraya aad u mahadsantihiin. Ciao.